waxa wax la yaab leh ninka maanta leh fatwadii Sheekh Umal ayaa caruurtii ku agawooday oo Muqdisho joogta oo raba muxaadara in loo jeediyo taariikhdii laga been sheego sax maaha inta waa mawaaqif wada caam oo markhaati leh oo la wada joogay way haddii aan ummad Soomaaliyeed dhiiggeeda daadinayo ama xalaalaynayo markay dhibaatadu gaadho uma soo gurmadeen haddaan qabo in la daadiyana xoolo uma soo ururiyeen dareen diineed weeye mas-uuliyad weeye culimadu ay qabto waajib diiniya waay intaa waxaan idin taariikhdaasi wakhtiga idinkaga lumiyey علشان inaad ogaataan xaqiiqada inaad ogaataan ummad badan oo been lagu lugooyo waxaan jirin loo sheegayna inay waxa jira ay ogaato intaas weeye aad baad u mahadsantihiin kelimada aan doonayo inta kadib inta yartee taariikhda inaan idin ahdo dadka reer Muqdisho waad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayran caasimad inuu Muqdisho ilaahay ka dhigay waa nicmo ilaahay idin siiyay waa ummadii Soomaaliyeed inaad hooyo u noqotaan caasimadu waa hooyadii dalka waa ummadii oo dhan ururinaysa waxa weeye waa idinka aqbalay soo dhaweyntii iyo xafladan iyo kahorba raalina waan ka ahay haba yaraatee nin u dudsanna ma ihi muxaadara lagu diiday ummaddu mana sheeganayo magaalada Muqdisho ayaa lagugu takooray ma qabo mana qabo inaad raali geli isiisaan sababtu waxa weeye wax dambiyood iga gasheen oo iga ma jiro markaan jawaabayana waxa dhig Muqdisho waa magaalada haba yaraatee uqdad alla noqonayana ma jirto insha Allah ta'ala hadday duruuftu ii saamaxdana waan soo noqon وان soo noqon oo idin la jooga insha Allah ta'ala sheekha muxuu ahaayay walaalaha qaarkood hadalkooda wadaadada kala qabta uu ka muuqday wadaadada kala qabta ma aha masaladu wadaadada kala qabta ma aha masaladu waxa weeye wadaad baa khaldamay ninka khaldamayna waa in la yiraahdo waad khaldantay saasay baashu ku hagaagtaa anagu intaan doonanay khalad maana abuurin mushkila maana abuurin ujeedadayduna ma aha inaan muxaadara dhigo markaan meesha iimaanay laakiin bulshada qaar ka mid ah culimada iga codsaday dhowr balin dhala joog khudbada jumcadana noo jeedi muxuu ahaay muxaadaraadna magaalada ka jeedi waan baaqday anigoo magaalada Nairobi hawlo badan kule baan saa u baaqday hadday mushkila abuurantayna go'aan waxaan qaatay intii hatta iska dhaaf dhiig ku daatee ruux Soomaaliya intii lagu xidhi lahaa ama xabsi ku gali lahaa sababtay ayadana hala kansal ayadoo waliba dawladdu ku madax adag tahay ana diiday oo ku yiri maya ma dhacayso hatta madaxweynaha waxaan ku qanciyay qiso waxaan u keenay Uthman ibn Affan khalifatu rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa loogu yimid duulaan niman kacdoon duulaan ugu yimid xafiiskiisa isku wareejiyeen inay dilaan bay rabeen saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam la joogay baa damcay inay difaacaan oo dagaalamaan oo khaliifka muslimiinta difaacaan Uthman wuxuu ku yiri ruux muslima intii sababteeda dhiig ugu daadan lahaa u baneeya farax ka qaada dagaalamina way ka baxeen saxaabadii nimankii way u soo galeen Uthman asagoo quraan akhrinayay ku dileen qisadaasan xataa u sheegay dawladdan ku idhi maadaama khaliifkii muslimiintu dhiiggiisii in la dilo u ogolaaday calashaan muslimiintu ha badbaadeen muxaadaro laga maarmi karo inay muslimiinta dib u soo gaadho sax maaha sidaasaan marka ku baajinay sidaas daraadeed wadaadka iyo wixii la fikrada iyagana waxba uma qabo Soomaaliya oo dhanna waa saamax dad fara badan oo la lugooyay oo aflagaaday wax badan sameeyayna ayaguna waa caf idinkuna waad mahadsantii haddii uu munaasabadii timaado oo la isu yimaadana masaa'il wixii culimada dhex yaala in laga wada hadlay ku fiicanta wixii la isla afgaran waayana nin walba uu tiisa si nabadgelyo ku wato wixii la isla afgartana si walaalnimo loogu wada socdo isaguna waa cafi intii gaf gashayna waa cafi dhamaanteena Allah ina wada cafiyo aadna waa u mahadsantii jazaakumullahu khayr wassalaamu alaykum wa rahmatullahi